السلام عليكم كسر وهذا محمد أسيل channel maantay waxaan soo wadadeyn doonaa barnaamij cusub kaas oo ku saabsan koobka gobolada Soomaaliland ee la filayo inuu dhawaan ka qabsoomo caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaanan idin dadeyn doonaa barnaamijyo goos ah ilaa inta socdo koobka kaas oo ka bilaabmaya isticmaalka bishan ilaa iyo dhamaadka koobka. waxaan ka bilaabi doonaa taariikhii hore ee koobka soo maray iyo marxaladihii koobku ku qabsoomay inagoo dul istaagi doonaa sanad kasta iyo marxaladihii koobku marayay iyo cidii hanatay isla waqtiga. waxaan ka bilaabi doonaa markii ugu horeysay iyo xagii lagu martigeliyay taas oo martigelintii koobaad ka yeelatay garoonka Hargeysa Stadium. waxaana isugu yimid 6 gobol ee ku waaweyn xilliga kuwaas oo kala ahaa gobolka Maroodijeex, Saaxil, Awdal, Togdheer, Sool iyo Sanaag. isla xilliga waxaa final isugu yimid gobolada Maroodijeex iyo Togdheer waxaana koobka hantay goolkulaag gobolka Maroodijeex oo noqday goolkii ugu horeeyay ee koobka hanta. marka laga yimaado taa isla sanadkii ku xigay waxaa isla Hargeysa lagu qabtay koobkii laba kaas oo final isugu yimaadeen gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer waxaana ay ku dhamaatay ciyaar aad u xiiso badan gool iyo eber waxaana koobkaas ku guuleystay gobolka Togdheer. sanadkii ku xigtay 2004 markii saddexaad waxaa koobka lagu qabtay isla Stadium Hargeysa waxaana ka soo qayb galay 6 gobol waxaana mar labaad isugu yimid labadii kooxood ee ku hirdamayay sanadkii hore oo ahayd kooxda difaacanaysa koobka gobolka Togdheer iyo kooxda sanadada la mari waayay ee gobolka Sanaag matalaysa. waxaana markan koobka guuleystay gobolka Sanaag ciyaar aad u xiiso badan oo dadkii joogay ku qiimeeyaan ciyaartii ugu fiicnay ciyaarihii koobka gobolada intii socday. 4 sano kadib waxaadna mar laba suurto gashay in markii afraad koobku ka dhaco isla caasimadda Hargeysa kaasoo ay ka qayb galeen isla kooxii markaa gobolada matalayay. waxaana markan isku yimid koox iyadu markii ugu horeysay timid finalka oo ah gobolka Awdal iyo kooxda quraatay 4 jeer hore ka soo qayb gashay finalka oo ah gobolka Togdheer. markaan eegno Togdheer wuxuu markii si hore yimid koobka 3 jeer hore isagoo markii si afraad waajahaya gobol isagoo ku cusub ciyaar dhamaysta koobka finalka. gobolka Awdal waxaa laga badiyay ciyaar aad u xiiso badan gool eber taasoo gobolka Togdheer ku guuleystay finalka markii si labaad. muddo ka bacdi dibdhac yimid badan awgeed waxaa markii shanaad koobka goboladu ka dhacay gobolka Togdheer oo martigelisay markeedii ugu horeysay waxaana ka qayb galay 13 kooxood kuwaas oo ahaa goboladii hore iyo gobollo markaa cusbaa. waxaana markaa aad loo xiiso gelinayay gobolada cusub oo dardar iyo xiiso iyo kubad tayo leh kusoo biiriyay tartankii hore u socday. waxaana markan finalka isugu yimid gobolka Maroodijeex oo dhinaca iyo gobolka Hawd oo dhinaca kaas oo ah gobolkii markii ugu horeysay gobolka Hawd final yimaado. waxaana finalka gool iyo eber ku qaaday gobolka Maroodijeex waxaana goolka u dhaliyay ciyaaryahankii weynaa ee Cabdiriyac. marka laga yimaado matalaada ay matashay gobolka Hawd markeedii ugu horeeyay waxaa mar labaad chance u siiyay inay ka hor timaado kooxdii koobka hore ka qaaday ee Maroodijeex. waxaana markan ay isugu yimaadeen magaalada Hargeysa sanadkii 2013 oo ahayd markii lixaad koobka la qabto. markan waxay ahayd mar isbedel weyn dhacay oo koox 14 ku soo biirtay koobka waxaana markan ku soo biirtay gobolka Xaysim waxaana xaga ku dhameystay 14 gobol isla sanadkan insha Allah ciyaari doona. 2015 markii toddobaad waxaa qabsoomay koobka gobolada kaas oo loo qabtay nidaam cusub oo ka duwan nidaamyadii hore ee u dhici jiray waxaana loo qaybiyay gobolada bariga iyo gobolada galbeedka halka
koox kastaba laga doonayay inay ka soo baxaan 4 gobolna Israa'iilka hore ku haraan si Hargeysa isugu yimaadaan 8 kooxood ee matali doona nidaamka cusub ee koobka gobolada sanadka loo ciyaari doono. waxaana isugu yimid gobolada Awdal, Togdheer, Daadmareer, Hawd, Haysiimo, Sool iyo Sanaag. waxaana ku hadhay kooxdii markii hore difaacanaysa koobka ee Maroodijeex oo ku hadhay stage-kii gobolada Galbeed. 2016 waxaa koobku ka qabsoomay gobolka Maroodijeex caasimadda Hargeysa Stadium Hargeysa. waxaana sanadka fooda finalka isku daray gobolka Saaxil oo markii ugu horeysay koobka final yimid iyo gobolka Awdal oo doonaya inuu hanto koobkiisii ugu horeeyay markuu khasaaray 2017 koobkii ay ciyaareen gobolka Togdheer. waxaana nasiibku sanadkaas siiyay inuu ku guuleysto gobolka Awdal oo labadii barkii badi ciyaartii ugu dambeysay gobolka Saaxil. waxaana goolasho dhaliyay Baxnaan. sanadkan markii 8aad waxaa lagu qabanayaa gobolka Maroodijeex waxaana ka qayb geli doona 14 kooxood markii labaad. waxaana la filayaa in ay dhacdo koobku amba uu bilaamo 28 bishan bilaamays. insha Allah waxaan ku dadaalaynaa inaan soo dayno barnaamijyo xiiso leh oo aad uga faaqiidi doono koobka gobolada iyo marxaladda imika marayo iyo cidda aan isleenahay waxay iman kartaa stage fiican oo sumcad iyo taariikh u gasha. si aad nala socoto dhammaan barnaamijyada insha Allah ku dadaalayno inaanu idin soo gudbino, waxaad nala wadaagtaa fikirkaaga commentiga ku soo hoos qor. waxa kale oon kaa codsanaynaa inaad subscribe iyo like iyo share intaba noo samayso. waad mahadsantahay.